hilibkii markii la kariyay ee la bisleeyay la shiray ka qaada xunbacad ba buuqda ka gurtay dheerigi waan ka qaadnay dhulkaan dhignay ka bacdi hilibkii saasiisu bedelay midabka ridka ay casaanka adka ayuu bedelay hilibkii maraqina urtaa qarmuunkaad moodidin bakhtiyo kale neef bakhtiyo kale yahay bisu bedelay uu madoobaday midabkaas isu bedelay markii dambana urtaas uu sameeyay yadna waan iska qaadnay dhulkaan dhignaa kana waa hilibkii oo laga guray markii dhergi laga soo wareejiyay way hilibkii saas isu wada bedelay marka maxaa ku dhacay cuntada waxa ku dhacaysa way xumbaynaysa markii hore sida toyd la qasay oo kale marka dambana midabkeeda isbedelaya yoorteeda qarmuun imka weeyay maraqina midabka bigayska asaas isu bedelay midabka bigayska shaha bigayska kala abu noqda yoor qarmuun بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة معجزة هي كدعوة دوان مقالة برعو قارهان حافظة أكتوبر دعوة داسي رون يوين لغو داري أيي لهاي وحنو كوب سغانا هاي قوريجي لغسو ورمايي أي معجزة دو كدعوة waxaan la joognaa qoyskii waxaan idin soo gudbinaynaa sida ay wax u jiraan inta saxda iyo inta lagu daray waxa barnaamijkan idin la socodsiinaya aniga oo ah Cabdi Malik Sheekh Musaacdoon muqaaladana waxa kala qaadaya Cabdiqaadir Cismaan Dubadiyo Maxamed Jookar walaashay way dhimatay markay 4 habeen mootanayd ayaan gogashii laabnay ayaan subaxda kamid ah hooyadayna joogtaan caano u soo qaadnay caanihii way isbedeleen dukaankaasaan ka soo qaadnay haanti biyaha cuntadii hilibkii bariiskii wax walba way ku dhamaatay wuxuun baa loogu yaacinaya anagu waxa laale waxaanu sameeynay wax ilaahay keenay mooyo waxaanu sameeynay ma jiraan waxaanu xumeynay ma jiraan waxaanu aasnay ma jiraan wax xalaal baan cuni jirnay reerku waa wada salaad sax intaasaan noogu yaro waa tukataa tiyalka fadhiidimaada taasaan noogu yaro waa tukataa waa wada tukana waxaan xalaal ahayn ma cunno dee ilaahay isagu subxaanahu wa tacaala waxaan uu keenay ya dadkiina nala rakaabsada dal iyo dibad waxa ay naga sarfinayaan waxaanu sameynay ma jiraan dee waa hagaagsannahay anagu imanka waa hagaagsannahay dee markaa dadka kale wuxuu nagu arkay garan weyn ummadda tan nagu soo jabteele meeshana waxyaalina aan daawano waxaan ilaahay keenay de maxaa laga daawanayaa maxaa laga daawanaa weel baan ku shubanaa weelka de markiiba intaanay naga goynayaan ku xabi jir intaan isbedelin baan xabi jirnay cuntadana de wixii isbedela waan halkaasaan iska dhigi jirnay maan cuni jirin marka saa loo soo dhigo imisa suugaysan inay isbedelaan ma iyagoo dabka saaran baa qaar isbedelaan iyagoo dhulka yaalana way isbedeli jireen marka maxaa sameyn jirteen waan iska duwi jirnay quraan baan iska akhrisan jirnay bas wasaqabna guriga waan ku joognay dhamaantay cunto markaad u baahataan cuntada markaan u baahno ama suuqaan la hadi jiro guriga aan ku jiray ama xaafadahana loogu soo karin jiray wax yar bay yarsu marka aad cuntada ka soo iibsataan dibadda ma noqon jirin waxba naga ma noqon jirin marka suuqana looga keenay aan cunayno waxba naga ma noqon jirin waxba naga ma noqon jirin isbedel naga ma dhici jirin marka maxaan ku dhahdaa xaafadana lagu soo kariyay adigu de quraanna waan ku akhri jirnay inta aan quraan ku soo kariyay guriga marka lagu soo kariyay isbedel jiray may marka guriyana lagu meel kale hadii cuntaas ka timaado isma bedeli jirin laakiin marka halkan lagu kariyo bay isbedeli jirtay bas marka anagu wixii marka quraanka aanu ka gaarsiino waan cuni jirnay inan baa hadda jira inankaasa jira daraato jimcihii quraacdu way iska kaay wada bedeshay isagu waa nooga horeeyay quraan buu guddi ku wada akhriyay iska cunay ma sha Allah xukuma noqon markii horena guriga wax ka jirtay walaashay waxay tiri raashinka cidiyaa lagu guri jiray cidiyaha marka lagu guro anagu yoom xisaab maalinta ilaahay la hortaagay waxaan arkay cidi xinna leh oo walaashay tustay laakiin had iyo jeer cidiyaa laga soo guri jiray raashinkooda marka waxaan waa wax walaashay lagu dilay oo naloo adeegsaday meel ilaahay nooga yimina meel nalooga yimina garanin marka cidiyo way sheegi jirtay xoran jirtay cidiyaan korka had iyo jeer gabadh cilaashada ku xidhanna way haydo cilaashkay dawada ka qanjay bukaan bay hayd boqol soon bay haydo saacad walba waa markaysta ama afur ama maxaan ku dhahday ayay ku arki jirtay cidiyo raashinkeeda ku jira dawladna xoran jirtay walaale guriga waxba jooga cidiyaa yaala cidiyaan raashinka ku arkay
dabeedna walaal bal shakiga iska saara quraanka sana walaalay waan guraanadahay saacad walba albaqra gurigeeda ka bixi jirtay rikoorkii albaqrada uu naga jabay cajaladina waa laga jabiyay marka de culimada iyo islaamku way arkayaan meesha marka inay de wuxuu wax inantii ku socday yihiin markii dambe hooyaday un bariga ka dambeysiyeen hooyaday baa sheekada ku socotaa hooyaday un bay sheekada duraadun bay nasaameysay inteeda kale hooyaday bay raashinka iyo mucjisad ku socotay hooyo maxaa dhici jiray raashinka hooyo un baa isbedeli jiray kan hooyo siinaynin baa isbedeli jiray guriga raashinka kale lagu kariyaa isma bedeli jirin isma bedeli jirin ilaa iyo jimcihii buu raashinka dadka kale isbedelay idinkana aad raacday ha adigu 4 cashuun baa raashinka isbedelay oo annaga nagu dhamaaday laakiin hooyaday buu ku koobnaa hooyo salaam alaykum marka cuntada iska ka badashay maxaad sameyn jirtay tii way iska dayn jiray waa runtay mabeen baan sheegaa naa iga qaadan oran jiray aanaha igu horeeyay naanu qaraara markaasaan waa geela abaarsaday iska dhan naamahay waa waabaye iga qaada markaan dhowr goor caanihii diiday iyadanaan caana liido u iibino daasad caana liido daasadaydaasaan iska cabbi jiray dabadeed caanihii markii dambena cunnadii baa la iigu dara cunnada saan u dhab markaan ama mar huro ama laba huro iyo qadhaadh noqotaa garba weyn oo dee dacar la milaya markaasay na waxbaa lagu daray baliga hooya markaasay wada dhadhashaan ila qadhaadha waa raashinka waa ka adag waa ka la cabayo wax walba qadhaadhkaasaa la iigu daraa dee dabadeed markaasaan ka cararaa ayna anigu cuni maayo cunnadana iga daaya markaan yaabay isbedelka midabka ma isbedeli jiray haayo way isbedel jiro markiiba waxay noqon jireen huruud madow markay huruudda noqdaan cabaar yeelaan iyo casaan isoo fogaan marka dambena sidii wax dhiig noqday wayba noqdaa cuntadii yaa marka dambena sidii wax dhiig noqday yayba noqdaa waana cunnadaas waana karaysaa ha markaa weelka ay ku raagto waa karaysaa dee markaa cunnadii saasay noqotay markii dambena reerkiiba waa saamaysa oo reerkiiba waa lagaga wada dara dee ilaahay baa garan waxay tahay garan mayne markii hore aday kugu gaar ana ii gaar ahayd markii hore cunnadayda lagu dari jiray aniga inanteedaasi waa 13 jir hablahe 20 guur yaanu inanta wada joogno waanan hablahayga kale la joogno waanu wada isku cunno ahay bukaan bay ahay arliga meel ayan dhakhtar iyo wadaad marin ma jiro markii ay dhimanaysayna waa loo sheego annaga waa naga qarisan geerideeda waa la tusay waa dardaarantay hablaheeda dabadda jiray la dardaarantay waxay tiri guriga labadayda hablood baa soo dhisay labadayda hablood lama laha labada hablood baa dhisay laba caruur oo kale walaalayihiin oo midba aabe yahay labadooda caruur wixii ay ka siiyaan waa iskeed waa waxay u gartaan weeye laakiin lama dhaxal kala cabdi cawad bay u tagtay cabdi cawad bay waraaq Yuusuf cabdi cawad iyo waraaq ka qortay waa la dardaarantay wadaadkii arrintii bay u sheegtay wuxuu yiri wax dhaxal kama kala markii dambana habliiba sidaa noogu waramay ay iyadu la dardaarantay iyo sidaa noogu waramay dee markaa iyadina iska dhimatay habeenkii lagu dhiftay halkaa dibadaan fadhiyey iyana dibadday ka timi suuqay ka timi markaasay na xaggaad qabatay markaasay hooyayna durqun baan soo kabay oo ay kabniyii ka soo furay markaasaan halkaa wada fadhiisanay dibaddaa labadayadiiba iyana gurigay ku tiirsantay anna bahalkanaan halkaa hore la fadhiyey markay cabaar fadhiday inta alla hooya nabar culus baa laygu dhiftay hooya nabar culus yaa laygu dhiftay markaasay quraan akhrisatay markaasay bisinka qabsatay markaasay shahaadatay markaasay shaydaanka iska naartay markaasaan yarteedaa idhi hadhuudh yaroo aanu karsanay na u keen raashinkeedii yarti markay sidaa u soo dhigtay yay tina ardo iyo xaawo igu yar waa labada ay walaalahayeen inantiina soo waaba miyir beesha markaasay kacdo iyadoo dabaq lebay daaradda moytin waa jiifsatay anna intaan bahalkaa qaarka dambe ay xanuuno intaan saa u soo qaatay yaynaa waa waxeedii u keen cajaladii iyo rikoorkiiba waa la jabiyey markii quraanka la geliyey waa labadiiba waa la kala tuuray dee cajaladiina waa kala jabtay
rikoorkina waaba yeedhi waaye shiq na horta mayuu jaba ilaan ma aneegin wakaa labadiiba halkan idinka yaali guriga yaali inantii naftiiba looguma hakanay iyadoo sawmiyir leh oo sidaa dhidid uga soconayo dhidi oo sagxadda u yaacayo yay noo yimaadeen markaasay tani tiri maxaa biyaha ugu shubteen markaasay na kuma aanu shubinoo halkaaba uma dhaafin horta markaasay inama ay dhashay la hadashay tiriye keena gaadhi waa kuwa qaaday baaxiir bay laba habeen ku hayeen inantii ka soo rayn weydi subaxii dambe subaxii saddexaad galabtii la keenay subaxeedii yaa wadaad u yimi wadaadkaa baash ciraashka haystaa gabadhi waa laga dul hadlay waxbaa ka dul hadlay naag baa ka dul hadashay alla wadaadow iga daa alla wadaadow iga daa alla deriskaana he iga daa alla wadaadow iga daa alla wadaadow iga daa ana ilaahay ku kashifo inaan ilaahay ku kashifin hay kashifin markaasuu alla ku kashif naamiyay ku maagtay ay tiri alla made waa qof islaam oo muumina oo ima maagin oo ima caayin anaan noloshayda u quuri waayey markaasuu wadaadkiiba ka kaca markaasuu inaa dad maleeda ay tiri mada ma tukataa ay tiri mada horta markaasuu wadaadkiina ka kaca dabeedna inta habeen subaxay sidaa lahayd habeenkeedii bay go'day markaasuu yidhi xaggaad wax uga soo qabatay markaasay tiri onodka markaasuu yidhi lacagtaad wax ugu soo qabatay intay ahayd markaasay tiri 250 markaa 250kaasi ahaayaa dollar layna haayaa war uma hayno markaasuu yidhi ma waxaad si reerkoo dhan laa anigu hadalkii ay u celisay ma maqlay markuu reerkoo dhan miyaadad soo dhan waxa ka hadheen hadalkii ay u celisay waxbaa iigu dhiman deedad markaasuu wadaadkiina ka kacay oo yidhi iimaanka alla kaa qaad hooyo waxaad iga wartaa inantaada ee soo xanuunsanaysay muddada dheer soo xanuunsanaysay ee cuntadeeda ku arki jirtay cidiyaha markaa ma keligeed bay ahayd mise dhibtu gurigay markaa soo sameeyay iyadiyo inanteedun baa sheegi jiray iyadiyo inanteeda yar inanteedaa yar iyo iyada yaa loogu guri jiray aniga la iguma guri jirin inantaasoo cuntada afka ku haysay odhan jirtay alla bal hooyo eeg cidida markaasay walaalaheed iyo dadka tustaa waa cidi dee inantaa iyo hooyadeeda loogu dari jiray lagu arki jiray iyadagaana ka warrami jiray aniga la iguma darin anigu markii inantaydu dhimatay waan xanuunsaday dhowr goor baan koome galay koomihii iyo wixiiba markii aan ka baxay ayaa cuntadii la iigu daray wax caanihii baa horta u horreeyey caanuhu waa qadhaadhaayeen markaasna caanuhu waa qadhaadhay iga daayey markaasna waa geela abaarsaday ee iska dhan waa taxare markaasna maaha taxare bal dhadhamiya markaasaa dadku wada dhadhashaa kulleyma waa deebaa inamadii caanaha laga soo iibsanayo yaa loo tegi jiray war caanaha maxaa ku darteen dee malaa idinkaa wax ku daray annaga waxba kuma darin laba gaadhaan noo yimaado oo caanahoodu waa wanaagsan yihi caanihiiba inamadii loo geeyo waa dhadhasheen maabala aynu ka dayno anaaba caanihii dido ina iga daaye dabeed caana liidoogaasaa la ii bedelay caana liidooga waxba la iiguma darin hooyaday markay qada soo dhigto ayaa cuntada markay istiraado hudhbay tima ku arki jirtay timaha ku aragtee markay afka gelisay ka mudu jireen afka markaasay odhan jirtay timaha halkan yaalla markay ka qaado ayay wadaad kun jeer bay quraanta saartay hooyo kadib marka hooyo dhimatay ilaahay u naxariistee sidee noloshii noqotay cuntadaada iyo biyaha cabaysid siday noqdeen aniga cuntadayda iyo biyahaygu caadi bay ahaayeen laakiin ayeeya ayaa wax lagu dari jiro mar waxay noqon jireen akhtar marba nooc bay noqon jireen sharaab fiinto ayaa intaan qooshayan halkaa dhigay baa qadhaadh noqday deetna waxaa la yidhi dadkii waxay sheegayaan beebay sheega waxaan leeyihin waa dhiig iyo malax waa shuuro aan walaaqaya halkaan dhigayba ayaa huruud isu bedasho deetna waxay leeyihin waa dhiig iyo malax ay dadku been bay sheegayaan markaa eeg maayo qura adigana ma ku dhacday adiga laftaada may aniga waxba igumay dari jirin haa laakiin markii dambe guriga oo dhan miyana saamay haa way saamaysay waxay saamaysay jimcihii subaxeedii yani waxa weeye marka maanta waa marka waa daraad bay sheekadu bilaabantay sheekada guriga oo dhan haa markii hore hooyo ka bilaabantay kadibna ayeeyo kadibna muxuu ahaa reerka oo dhan haa adiga adeer maxaa dadka dhibta kaa soo gaadhay shakhsiyan ama idinka soo gaadhay guud ahaan markii sheekada la ogaaday dadkii shalay halkan tubnaa dhibta idin soo gaadhay nooga war
wayna shiideen markayna shiideen aniga kalidaasay nabargaga dhifteen shiid bay nagu hardiyeen deeta markii dambe waanu iskaga dareenay guri halkaas abar eeday leedahay baan tagnay aanu hooyanay saakana guriga hadalada dadku idinku odhan maxaa kamid ah hadalada dadku nagu odhan waxaa kamid ah islaantii guriga ka dhimatay fooxisay ahayd dhiig iyo malax baa qasabadooda ka soconaysa guriga malax iyo dad reerku dhiig bay galeen marmarkii inta la fufujiyey baa reer qof lagu aaso kadibna marmar baa la saaray kadibna waa la fufujinayaa islaantii dhimatay markii meydkeedii wada baagbaag bay noqotay kalar bay noqotay intaas sarana casaan bay noqotay inta kalena cadaan waxaasay dadkuna leeyihiin laakiin waxba kama jiraan waad nala daawanayseen wax badanna waxa weeye waa idin kordheen sida ay wax u jiraan runtii waxaanaad arkayseen waxyaabaha runtii murugada leh ee aadka looga damqado qoyskan dhibanaha ah ee ay bulshada ku hareeraysan iyadu wax magaratadeedu dhibta u geysanaysay iyo hubsiin la-aanta aanay dadku waxba iska hubsanayn ay u nugul yihiin ama u diyaar yihiin inay wax kasta rumaystaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi qur'aanka kariimka bacda acuudu billahi min ashaytaani arajiim wain jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaala fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin oo micnaheedu yahay yani nuxurka aayaddu yahay yani warka in layska hubsado si aan loogu gafin cid kale ilaahay waxaan ka baryaynaa annaga iyo idinkuba dhammaanteen allah waxaynu ka baryaynaa inuu qoyskan ka kor qaado dhibta haysata u duceeya taasaa ugu muhiimsan barnaamijkan waxaa idila socodsiinayay anigoo ah cabdimalik sheekh muuse coldon waxaana muuqaalada kala qaadayay saaxiibaday cabdiqaadir cismaan dubbad iyo maxamed jookar waa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer السلام عليكم ورحمة الله وبركاته